nabad saaxiibayaal waa barnaamij la magac baxay wehelka wariyaha oo noqon doona barnaamij tababar saxaafadeed aan doonayno in aanu ku kobcino xirfadda saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo waliba cid walba oo danaysa saxaafadda. barnaamijkan oo taxana inoo noqon doona ayaa qaybo kala duwan oo tababarka saxaafadda aynu ku eegi doonaa. waxaana barnaamijkani uu nagu dhashay kadib markii aanu aragnay in dagaalada iyo rabshadaha ka jira dalka Soomaaliya ay saameeyeen tayadii saxafiyiinta, iyadoo saxafiyiinta xirfadda lahaa ay noqdeen qaar dhintay iyo qaar wadanka ka cararay iyo waliba qaar shaqadii saxaafadda joojiyay, halka dhalinyarada haatan shaqada saxaafadda ku jirtana aan u aragnay inay yihiin dhalinyaro u baahan in ay tacliin iyo garab qabasho saxaafadeed ay helaan. barnaamijkan waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah Cabdiqaadir Cabdullaahi Cusmaan oo ku magac dheer Farayaamo. qaybta koowaad ee aanu ka hadli doonaa waxa weeye waa qayb hordhac ah. waxaanu ka hadli doonaa maanta saxaafadii waxa ay tahay, shaqada saxaafadda, waa kuma saxafiga wanaagsan, iyo maxay tahay qawaaniinta saxaafadda ee aasaasiga ah. qodobadaas ayaanu si kooban u dulmari doonaa, anigoo filaya in tafaasiishana aad ka heli doontaan buug la magac baxay wehelka wariyaha oo aanu barnaamijkan ugu magac darnay, oo asna xilli dhow la daabici doono laakiin weli la daabicin, hase ahaatee dhammaystiran. waa maxay saxaafad? okay, marka meel dheerba ka raadin mayno waxa ay tahay saxaafad. waxaa tahay matalan ba wariye ka shaqeeya raadiye, television, journaal ama online journalismka internetka. markaasi shaqadaadu waxa weeye warkaad soo aruurisaa, ama waxaa tahay warwariya, waxaa tahay saxafi goobta fadhiya oo warka akhriya ama dadka waraysta, isku dubarida wararka kasoo tabiya meelo kala duwan, sawir qaada ah, baaritaano sameeya iyo wixii lamid ah. haddii marka sidaasi aad tahay, shaqadaada rasmiga ayaa waxay qeexaysaaba waa maxay saxaafad. markaasi waxay noqonaysaa saxaafaddu waa isku dubaridida, aruurinta, tabinta, qoridda, sawir qaadista, baaritaan samaynta iyo dhammaan shaqooyinka kale ee saxaafadda la xiriira ayaa waxa lagu qeexi karaa waxay tahay saxaafad. okay, saxaafadda la daabaco iyo saxaafadda kale ee aan la daabicin ayaa ay saxaafad u qaybsantaa. marka ereyga saxaafad ee journalism waxa uu ka yimid saxaafadan la daabaco sida journaalada, majaladaha, bugaagta iyo xaashiyaha kale ee la daabaco. warbaahinta kale ee lagu magacaabo electronic journalismka waxaa ka mid ah telefishinada, raadiyayaasha, internetka, cd-yada, dvd-yada iyo waxyaabaha lamidka iyo shaneemooyinka. marka kulligood waxaa u isticmaali karnaa warbaahin ayay soo hoosgeli karaan. okay, waa marka shaqada saxaafaddu maxay tahay? waxaan horey u maqalnay oo in badan maqalnay inay saxaafaddu tahay waxbare, inay ogeysiiye tahay iyo inay madadaaliye tahay. saddexdaas qaybood baan horey u naqaanay. waxaan kaloo sheegi doonaa qaybo kale oo ay ka mid tahay inay saxaafaddu tahay qareeme, fududeeye, xaqiijiye iyo warka saxaafaddu inay tahay war qurxiye, macnaha ama qaabka warka ay u sheegto oo ay ka dhigto mid aada u fudud. waxaa la yidhi saxaafaddu waa waxbare. waxaa og tahay mar walba oo aad raadiyo furtid, telefishin furtid ama journaal akhrisid, ujeedada inay tahay aada u furaysid inaad wax cusub heshid. waxa cusubna waxay inta badan u badan yihiin waxaadan ogeyn. marka waxaa jira saxaafaddu halkaas waxay ka noqon kartaa macnaha dugsi oo kale ama iskuol waxbarasho. had iyo goor waxaad ka maqlaysaa waxyaaba la xiriira taariikh, juqraafi, saynis, cilmi baaris fara badan oo la sameeyo ay kusoo gudbiso. waa ogeysiiya, informer weeye. saxaafaddu waxaad u furaysid raadiyaha ama telefishinka waa inaad sidoo kale akhbaar cusub ka heshid. markay soomaalidu ay labada qof is salaamaan, waxay isku salaamaan war maxaad sheegtay. macnaheeda waxa weeye qofka kale wuxuu rabaa inuu ka ogaado wax aan macnaha cusub inuu hayo kale. markaas ogeysiiye weeye oo inta badan saxaafadda dhacdooyinka dhacaya inayn ogeysiso ayaa markaas ay shaqadeeda tahay. madadaalada ka mid ah
madaalada maaweelada nasashada xilliyada sportiska heesaha kulli waa qayb ka mid a shaqada saxaafadda. Okay, waxaa kaloo saxaafadda ka mid a shaqadeeda u qareeme, dadka ayay u qareentaa, dadka laga tira badan yahay, dadka dhibaataysan, dadka mataqaana mashaakilaysan ayay saxaafaddu afkeeda ku hadashaa iyo weliba dhammaan bulshada. saxaafaddu way fududeysaa qaabka warka loo sheego. matalan ba haddii qof saxafiya iyo qof aan saxafi ahayn hal dhacda ay kuu sheegayaan, waxaa laga yaabaa qofka aan saxafiga ahayn inuu u sheego qaab isdaba marsan oo weliba warkii qaab wax badan ka dhiman yihiin, laakiin saxafigu waxaa laga yaabaa inuu 3 daqiiqo ama 2 daqiiqo kusoo koobo dhammaan xogtii aad u baahnayd oo dhan. marka sidaas ayuu fududeeyo ay saxaafaddu ku tahay. waxaa kaloo ka mid ah saxaafaddu shaqooyin badan bay qabataa. marka xaqiijiya wararka jira iyo wararka aan jirin ayay dadweynaha u kala socdaa oo ay u kala xaqiijisaa, iyo weliba shaqooyin badan bay qabataa. okay, waa kuma saxafiga wanaagsan. saxafiga wanaagsan waxaa looga baahan yahay, maadaama saxaafadda ay tahay xirfad la mid a xirfadaha kale ee caadiga ah, wax walba oo xirfadaha kale looga baahnaa oo wanaaga waa looga baahan yahay oo qofka shakhsiyadiisa ku xiran. laakiin waxaa sii dheer intaasi waxyaabo badan oo dadaal u baahan inay ku yimaadaan oo saxafiga wanaagsan astaan u ah. waxaa ka mid ah warjacaylka, howlkarnimada, daacadnimada, aaminaada, shaqo jacaylka iyo weliba aqoonta. okay, warjacayl, warku inta badan adigu kuma soo raadsanayo, waa in saxaafaddu ay warka geed dheer iyo geed gaaban u fuushaa. howlkarnimada ka mid ah saxafiga hadduusan howlkar ahayn, waxaan ognahay saxaafaddu inay tahay meel nasasho ma taalo. markaas waxaan ku dhila haddaad nin aan jeclayn shaqada badan oo nasashada jecelda tahay, waxaan ku dhihi lahaa meeshaan ma ahan meeshaadii, oo malaha meelo kale aad ku fiican tahay ee aad u bedelan kartid. marka howlkarnimo adag ayaa loo baahan yahay. har iyo habeen waxaa laga yaaba adoo gurigaaga fadhiya in akhbaar ama war soo dhaco, markaasi aad dhaqso halkaas ka carartid ama adoo weliba nasan aad dib u laabatid. marka hawl adeeg bay u baahan tahay. daacadnimadu maxay tahay? warka aad tahay saxafi wanaagsan, warka aad sheegaysid dadweynaha u sheegaysid waa inaadan dan gaara ku wadan, waa inaadan qof ku xasdin, waa inaadan rabin in aad kusoo cambaxdid. daacadnimadu waa intaas. aaminaada ku saarta. marka aaminaada saxafiga laga rabo maxay tahay? aaminaad waxa weeye saxaafadda sirta ayaa mar lagu qarsadaa, waxaa ku qarsada dadweynaha aad wakiilka ka tahay. in badan baad maqasheen warkan qofkii sheegay oo ka gaabsaday magaciisa in la faafiyo. maxay tahay? sababo ammaan baa gaabsado, sababo siyaasadeed. maxay tahay? saxafiga waxaa la rabaa inuu warkaasi u qariyo. saxafiyiinta caalamka ayagoo hawshaasi ku adag ayaa mar waxaa dhacda in maxkamada lasoo taago oo ay sir ay u qarinayeen qof shakhsi ah oo markaas ay ka hor timaado danta qaranka ama danta ummadda, kadibna wariyihiiba uu la kulmaba xarig ama ganaax. shaqo jacayl, haddaadan shaqo walba waa la mid, saxaafadda keliya maaha. haddaadan shaqada jeclayn ma wadi kartid, mana kuu soconayso, mana kuu dhadhamayso. aqoontaa ka mid ah. saxafigu waa inuu lahaado sida xirfadaha kaleba aqoon baysiga, midda haddaan ka hadlayn oo kale ka mid ah. waa inuu ugu yaraan haysto aqoon asaasi ah oo saxaafadda ku saabsan. okay, qawaaniinta saxaafadda ee asaasiga ah maxay tahay? qawaaniinta saxaafadda asaasiga ah waa qayb ka mid ah shaqada wanaagsan ee saxafiga ee haddaba aan qaar soo sheegaynay. laakiin waxaa dheer intaasi runta, daacadnimada, xaqiijinta, madax banaanida iyo xog qeexan oo aad dadka u gudbisid. okay, runta maxay tahay? runtu waa aasaaska saxaafadda. mala awaalka, khayaaliga amase war abuuridda, ku dardarista, kulli saxaafadda shaqo kuma lahan. mar waxaa dhici jirtay aan raadiyaha ku jiray oo saxaafadda gobol kale laga soo wacay ama deegaan kale waxa lagu leeyahay, ama adigaaba deegaan kale wacayaba waxaa leedahay ama lagu leeyahay war ma haysaa. markaa dada war ma jiro, wuxuu ku leeyahay war bal habee war samee buu ku leeyahay. okay, warka in hal dhibic oo beena ay ku jirto warka waa mamnuuc. in xataa la sameeyo oo khayaali lagu sameeyo waa mamnuuc. haddii aad war weydi intaa war beena samayn lahayd in war la-aan kugu dhacdaa ka fiican. laakiin waa jirtaa mar qaab warka loo balbalaariyo oo la badbadiyo waa jirtaa. taasna waa war hore u jiray oo lasii taxliiliyo, markaas way dhici kartaa. taasi waxay ku xiran tahay xirfadaada. okay, daacadnimo hore ayaan usoo sheegnay. qodobka xiga aan sheegay xaqiiji warkaaga. war aa shaki ku jiro cidna ha u sheegin. waxaa kaloo jirta xaqiijinta waxaa soo hosgelaya war aadan hubin ama aadan fahmin cid uma gudbin kartid. waxaa la mid ah inaadan
wax adiga naftaadii aysan fahmin weli inaad qofkan u gudbisid inay aad kugu adkaanayso markaas warka oo ku fudud oo ku qeexan dadka u sii qeexa kadib madax banaanida maxay tahay madax banaanida waa in saxafigu ka madax banaanaado dadka uu warka u gudbinayo ama dadweynaha uu wakiilka ka yahay maxaa weeye haddii dhacdadu xataa ay ku qusayso warka waa inaad si normal ah ama si caadi ah oo aan xagal ku jirin waa inaad sheegtid dhexdhexaadnimada dadka inaad u dhaxaysid ayaa ka mid ah asaaska labada dhinac haddii aad mataqaanaa matalan doorasho dhacayso kale haddii xisbiyadoo kale waa inaad u noqotid dhexdhexaad dadweynahaaga laftirkooda waa inaad u noqotid dhexdhexaad waa inaadan dhinac ama qeyb ama taageersanay xataa haddii aad mabda-iyan laga yaabo inaad dad gaar taageersan tahay haddana saxaafaddu taageeradaadaas ma ahan mid saxaafadda aad ku muujin kartid ama xataa lagaa dareemi karo inaad mataqaanaa saxaafadda aad cid taageersan tahay maxaa yeelay dadka ayaad u siman tahay xogga qeexanna horey aan u sheegnay marka qeybta koowaad ee maanta aanu ka hadlaynay intaasi ayay ahayd saxaafadda marka haddaan dib ugu noqdo qodobadaan soo sheegnay waxaa ka mid ahayd maxay tahay saxaafad waa kuma saxafiga wanaagsan aasaaska saxaafadda iyo shaqada saxaafadda ayaan ka hadalnay saaxiib yaal qaybaha kale ee xiga inta aynu mar kale dib ugu kulmi doono waa anigoo ah cabdiqaadir cabdullaahi faryaamo oo idin leh nabadgelyo